ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام يا جبي هنتيمبا ميل والبود يقدر ونيسان وقت والبود يدين تهاي حالد والبود كتشرتان با. وإذا سو السلام يا ومرك على برنامج كله حنا أنت كهذا يا موضوع كدوان برنامج جديد يعني كهذا الجرنا أهم حق قدام بي ذلك محات تاجن محل فيليا بينو أنت بدن كهذا الجرنا حنا أنت كهذا يا موضوع كدوان وأنا سلاها هاي وimportant إنه ما أنت كهذا لنا sababta keentay inaan maanta ka hadalana dib baan ka sheegi doonaa waxa arintan ku xeeranna waxaan isleeyahay picture weyn bay umada walaalahay ah ee Soomaaliyeed ay ka fahmi doonaan waxa ka jira gudaha dalka Soomaaliya isbedelka jira iyo caqabadihii dalka Soomaaliya haystay muddooyinkii ugu dambeeyay iyo maxaa iska bedelay ayuu maanta mawduucan ku saabsan yahay waxaan si khaas ah diiradda u saarayaa waxa jira documentary aad xasaasi u ahaa ككوبنا كوي لما تنبيج إسلام مركزنا أي كشرين ويران إلا أي دور يطبن إلا يسديد إلا يسجل طبعا مقال أو كالدون أو آد controversial وها أو أي سي داين أو ربعين تكوسي داين براه برشة ما هنا ملاك اللي تو إنترنت ده حلو قرقرة نقصي داي سنة دي لما تكون يلحي طبعا كي أي هذا دبلو قصار هاي لها مهدية إن كوبي كهايو ولما PDF عن كهايو inaan mid kale documentary oo caadi ah na uu ku jiro maxaa la yiraahdaa folder anigu aan hayo anytime la heli karo anywhere na laga heli karo insha Allah taala laakiin dadkii iska lahaa ay gabi ahaanba ka saareen waxa iska kaashaday sideynta documentigan dhowr sirdoon oo kamid yahay sirdoonka Mareykanka iyo Faransiiska iyo waliba kuwa Ingiriiska waxa ku qornaa xogo xasaasi ah oo looga hadlayay caqabadihii hortaagnaa dawladii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidii loo isbaaray si dawladdaasi ayuu documentigan ka hadlayay maanta intan ayagii baa documentigii tirtiray oo qarinaya oo doonaya in isla dadkii ay shalay documentida nooca ay ka sii daayeen inay maanta inta awliye ka dhigaan waana sababta loo sii daayay waxaa jira xogo la xiriira sababta documentigan looga saaray internetka dad shakhsiyaad ah oo Soomaali ah ayaa ii sheegay oo aragtidooda ay ku dhisayaan iyo xoga iyaga shakhsi ah oo anigu aan helinin in uu Xasan Sheekh Maxamuud iyo dad asaga la mid ah ay hadleen oo ay lacag ku bixiyeen warbaahinta isla markaasna laga saaray arimahana way jiraan oo aan cadeyn karnin waxaan rabaa inaan barnaamijka u galno saddex arimood ayaa caqabad ku noqotay dawladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ka ahaa mandate-keedu 2012 iyo 2017 horaanteedii uu dalka madaxweynaha ka ahaa saddexdaas arimood ayaa midba waxa documentigan ku jira importantiga waan isleeyahay qof walba maanta inuu maqala muhiim bay u tahay ayaan ka hadli doonaa kow wuxuu ka hadlayay documentigani in filadii Soomaaliya ay galeen ama ay mataqaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay isku hareereeyeen koox urdiimeed ah oo magacooda la yiraahdo Damu Jadiid iyo meeshii ay ka soo farcameen iyo xaaladooda waxa ku dhex jiray raggaasi ilaa iyo 3 nin oo ay dawladaha reer galbeedku oga shakisanaayeen inay xiriir leeyihiin al-shabaab taasoo keentay in dawladda Xasan Sheekh albaab badan oo caalami ah ay ka xirmaan waa arinta ugu horeysa labo waa aasaaskii Jubbaland iyo dhibaatadii dawladda Kenya iyo Axmed Madoobe ay ku sameeyeen dawladda Soomaaliya iyo qaabkii Xasan Sheekh oo la macaamilay oo aad runtii ka niyad jabaysaan sida uu Xasan Sheekh Maxamuud sameeyay saddex documentigan ka hadlayaa dawlado aad u fara badan oo shisheeye oo kambaniyo shidaal ah ay hoosta ku wataan oo dalka ku soo duulay iyo isku daygii badda Soomaaliya shidaalkii iyo laysamo badan oo la damcay in la qaato saddexaas qodob buu ka hadlayaa midba waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobo oo dhowr meelaha ugu muhiimsan aan ka dul istaago si aad picture-kaas u aragtaan kabacdina waxaan ka hadli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo isbedelka maanta ku dhacay iyo aragtida cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo gabagabin doona haddaan ku hormaro arrinta Damu Jadiid waxay yiraahdeen intii uusan Xasan Sheekh Maxamuud isku soo sharxin madaxweynenimada dalka Soomaaliya wuxuu Xasan ka tirsanaan jiray urdiimeed kaleeto oo al-islaax la yiraahdo ayuu ka tirsanaan jiray al-islaax ayay ka soo baxeen waxay ku biireen urdiimeedkii la oran jiray maxaakiimta islaamiga ayay ku biireen asaga iyo rag saaxiibadiisa oo kooxa oo aan dib ka sheegi doono magacyadooda kabacdina markii ay maxaakiimtii kala burbureen ayay dib waxay ugu soo laabteen stage-koodii hore ee Damu Jadiid ahaa maxaakiimtii markay kala burbureen marka al-shabaab ka baxay Damu Jadiid baa ka baxay dad kale oo badan ururo kalena way ka baxeen oo ayaguna local u badnaa
arrintaa markii ay dhacday wixii ka dambeeyey ayuu xasan isku soo sharaxay markaa inuu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya 2012kii asagoo markaasi labada stage soo maray ayuu soo sharaxay xasan waxaa runtii taakuleynayay campaignkiisa oo dhaqaale ku bixiyay dowladda Kuwait waxaa la soo qaaday lacag la sheegay inay 12 milyan ahayd raggii soo qaaday waxaa laga sheegay inuu ka mid ahaa Faarax Cabdulqaadir oo markaasi macalinka ahaa iskuulo ay gacanta ku haysay dowladdaasi Kuwait asaguna uu calaaqaad fiican la lahaa xasan wixii intaa ka dambeeyay doorashadii buu galay doorashadii buu soo baxay waxaa kaloo jiray intii uusan soo sharxin ka horna wuxuuna xasan uu qayb ka ahaa asna iskuuladaasi ay Kuwait gacanta ku hayaan wuxuu kaleeto oo xasan uu ka soo shaqeeyay oo aad ugu dhawaa xoolaha lacag uu ka soo helay niman NGO magacooda la yiraahdo African Muslim Agency niman la yiraahdo ayuu ka soo shaqeyn jiray waxaa jiray markii ninkan la doortay 4 nin oo cycle-kiisa ku jirtay oo asagana dhibaato u keentay dowladnimada Soomaaliya dhibaato u keentay sida documentigan ku qoran maaha aragteeda ma wax aniga meel kale ka keenay qofka ugu horeeyay Cabdikariin Xuseen Guleed ninka labaadna waa nin la yiraahdo Umar Sheekh Ali Idris waa siyaasi cid taqaar garanaysa ninka saddexaad waa Maxamed Nuur Gacal ninka afaraadna waa Maxamed Axmed Abtidoon afarta nin waxay ku jireen cycle-ka Xasan Sheekh Maxamuud waxayna kamid ahaayeen dad siyaasiyiin ah oo badan oo Soomaali ah oo runtii loo arkay inaysan aragti ahaan ka fogeen al-shabaab isla markaasna ay tuhun badan ka qabeen dowladda reer galbeedka iyo nimankan xaalada ku jira raggaani waxyaalaha laga qorqoray oo background-kooda laga qoray waxaa kamid ahaa Cabdikariin Xuseen Guleed waxaa la yiri ninka la yiraahdo waxa uu ahaa baa la yiri asaguna nin markii hore maxaa la yiraahdaa asna ururada soo tirsanaa wuxuu xiriir dhow la lahaa isagoo xasan la socdana xiriir hoose oo dhow la lahaa baa la yiri Sheekh Shariif waxaa kaloo la yiri Umar Ali Idris ninka la yiraahdo wuxuu ahaan jiray ambassador hore oo dowladda Qatar buu ambassador ka ahaan jiray wixii ka horeeyay 2009kii wuxuu kaloo hadana uu ku biiray baa la yiri xisbi siyaasadeed magaciisa markii la soo gaabiyay ARS la yiraahdo oo asaguna Asmara aantii la sameeyay doorashada asna qayb ka ahaa ninka la yiraahdo Maxamed Nuur Gacalna wuxuu ka mid ahaa dadkan civil society-ga marna wuxuu ahaan jiray baa macallin jaamacadeed Abtidoon ninka la yiraahdo asaguna wuxuu iska ahaa nin al-islaaha markii dambe tan wuxuu ku biiray baa la yiri kooxda dam jidid raggan marka runtii ideology-ga ay aaminsan yihiin oo diiniga ah ayaan ka fogeen baa la yiri al-shabaab waxaa kaloo jiray waxyaalo la xiriiray oo nimankan ay sheegeen oo ahayd in nimankan xiriir la lahaayeen sidaa daraaddeed xasan nimankan baa cycle-ka kula jiray ama filada kula jiray inuu ka bixiyana wuu diiday sidaa daraaddeed wuxuu xasan ahaa nin aragtiyan aan aad uga fogeyn sida nimankan u arkaan isaga saaxiibadii kooxahan al-shabaabka taa marka waxay dhalisay in aan xasan mararka qaarkood aan loo arag nin caadi ah oo madaxweyne laakiin loo arkay nin jaanis helay ama ku jira cycle ururdiimeed oo wax walba ay ka suurtoobaan waayo haddii maxaakiimtii intay ay kala burbureen qaybna al-shabaab noqdeen qaybna damu jadiid noqdeen damu jadiid iyo al-shabaabna aragtiyan meesha ay kala joogaan iyo sida ay wax u belief gareysan yihiin ay isku hal soos yihiin runtii way adag tahay sida ay nimankan u aaminaan reer galbeedka taa marka halkaasi ahayd taa kalbi arta ku noqotay dowladnimada Soomaaliya waxyaalo badan oo inoo shaqeyn lahaa istaagay xasanna wuxuu noqday nin aan runtii saaxiibtinimadiisa ka doorbiday in dowladnimadu ay shaqeyso raggaasna hoostu ku wata taa waa halkaas qodob koobaad qodobka labaad wuxuu ahaa baa la yiri arrintii loo yaqaanay aasaaskii maamulkan Jubbaland la yiraahdo maamulkan Jubbaland aasaaskiisii runtii caqabad buu dowladnimada Soomaaliya ku noqday dalka Soomaaliya dhibaato ku noqday dowladda Xasan Sheekh Maxamuud dhibaato ku ahaa aragtida dadku ay ka haystaan waxay u qabaan in Axmed Madoobe Kismaayo aan qaato iyo badda iyo shidaalka iyo waxa inay Kenya ku doonayeen ayaa dadku loo qabaa laakiin wuxuu documentigan u leeyahay waxay Kenya doonaysay inay fila Soomaaliya qofka jooga ayadu ay xukunto qof waxay rabtaa fila Soomaaliya qofka jooga inay waxay rabaan u sheegaan oo ay filada xukumaan sidaasna ay tahay sida kaliya ee arrimahan Kismaayo iyo shidaalka iyo waxa ay ka doonayaan iyo xuduudahan iyo qaabka ay ku heli karaan soo marka aragtidoodu Kismaayo kaliya way ka weyneedeen ilaa ay filada inay xukumaan bay doonayeen taasa marka waxay keentay in ayagii iyo Xasan Sheekh Maxamuud markii ay dhiseen maamulka loogu yeero magaciisa Jubbaland inay isqabtaan waxa la isku qabtay kaliya ma ahayn marka maamulkaanu xaraam buu ahaa mise xalaal buu ahaa maysan ahayn waxay ahayd anaga idin yeerinayna waxaynu doonayno ayay ahayd
isqabsi fara badan ka bacdi 4 June 2013 ayuu xasan sheekh maxamuud tagay hotel magaciisa la yiraahdo Sagana State Lodge oo ku yaala Nyeri Kenya halkaasoo la aaminsan yahay inay ahayd goobtii uu xasan sheekh maxamuud ku ogolaaday in dawladda Kenya ay sidee rabto u maamusho Kismaayo iyo badda iyo arrimahaasi isla markaasna Kenyaanku ay qayb ka noqdaan stakeholderska dalka ka jira dadka wax laga weydiiyo Soomaaliya inay qayb ka noqdaan ayuu markaasi ogolaaday balaleey waxa inta dheer runtii oo inta ka dambeeyay marka in Xasan Kismaayo iska daayay in Axmed Madoobe asagoo ay isku xulfo noqdaan in wixii Kismaayo ka socda aan la joojinin in aan laga hadal iyo rama la mid ah walow markii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu qaatay go'aan geesinimo oo inuu diido u go'aansaday isla qabsi ka bacdina Xasan Sheekh Maxamuud gacanta nimankaas ku dhacay taa markaa waa qodobkii labaad waana qaabkii aas-aaska maamulka Jubbaland la yiraahdo uu dowladnimada Soomaaliya dhibaato ugu ahaa qodobka ugu dambeeya runtii ahna qodobka ugu dhibka badan ayaa wuxuu yahay dalal shisheeye oo aad iyo aad u fara badan iyo shirkado ayaa dalka kusoo duulay arrintan ayaduna waxay ahayd qodob dhibaato u keentay dowladda Xasan ma uusan lahayn istaraatiijiyad ku aadan maxaa laga yeelayaa dowladaha shacabka doonaya maxaa laga yeelayaa Kenya ururdiimeedkaani sidee yahay waxaana dhan Xasan runtii aragti fiican ka muusan haysanin nin siyaasadda ku cusub local ah nimankan aan luqad fahmaynin dhaqankooda iyo rabitaankooda iyo luqadda ay ku hadlaan aan fahmaynin ayuu ahaa oo nasiibku u saaciday baan oran karaa dalkan sheeye markii ay yimaadeen markii maxaa la yiraahdaa ay dowladda Soomaaliya samaysay waxa loo yaqaano inay ballaariso xuduudda badda oo 200 oo neutral mile laga dhigay waxa loo yaqaan badda Soomaaliya wixii ka dambeeyay waxa dalka ku bilowmay inay ku soo yaacaan shirkado shisheeye ayaa ku soo yaacay shirkadaha marka ku soo yaacay qayb waxay ka imaanayeen dalkaasi Kenya tusaale oo kaleeto shirkada loo yaqaan Total oo dhanka Faransiiska ka imaanaysa iyo Eni oo aydan dhanka Talyaaniga ka imaanaysa labadaba blockyo hadda gudaha Soomaaliya ku jira ayay dowladda Kenya license ka siisay ayadoo waliba Soomaaliya ay xaraysay waxa loo yaqaan waraaqdii ay Soomaaliya ku codsanaysay in la ballaariyo ama la extend gareeyo xuduudda badda ee Soomaaliya ayay nimankaasi licenses dowladdu kama aysan hadal arrimaha mana aysan jirinin qaab protection leh oo dowladda Soomaaliya arrimahaasi ay oga hadashay oo publica wuxuu damay Xasan inuu qaab hoose oga hadlo laakiin ma aysan shaqeynin soo marka Shell iyo anyway kala duwanaayeen ama Total baa ka wada iyo anyway kala duwanaayeen Total waxay rabtay markay ka soo qaadatay license Kenya inay Xasan Sheekh Maxamuud u imaado license ka qaato sida marka ay fully approved ku noqoto laakiin any waxay doonaysay ama ay rabtay ama ay u aragtay inaysan important ahayn in Soomaaliya wax la weydiiyay ee Kenya hadii license laga qaatay insan loo gudba ay doonaysa waxa kale oo meesha ka soo baxay shirkad kale oo aydan la yiraahdo DNO la yiraahdo oo markaasi aydan dhanka ay Hargeyso qandaraas ka qaadatay oo ayaduna halka ka bilowday Shell iyo Chevron iyo Marathon iyo shirkado kale lamid ah ayaguna waxay la yimaadeen heshiisyo hore oo yiraahdeen dowladii hore Siyaad Barre ayaa markaa ina siisay dalka oo dhan marka waxa ku soo yaacay shirkado shisheeye oo kulligood bashtaal goobay waxa la yiri shirkadkii baa la qaybsanayaa xuduudii baa la qaybsanayaa qayb dhanka Kenya ku jiraan qayb dhanka Soomaaliya ku jiraan qayb labadaba gacanta kula jiraan bob baa bilowday dalku marka wax political strategy ah oo shirkadka la xiriira wax qaynuun ah wax sharci ah batrool ah waxa dhan kama jiraan marba Xasan qola u maanaysa marba si uu yeelaya marka taasna pressure kale ku noqota ayadoo awalna asagii laga shakisanaa cycle ku jiray kooxaha Islaamiga oo looga shakisan yahay inay xiriir leeyihiin al-shabaab Kenya dhanka ay ayadana balaayo kaga wado haddana dawlado kale baashi dhanba marka runtii waxay noqotay wada caqabad miran bay noqotay saddexdaas arrimood marka waxay noqdeen arrimaha dambu jidid iyo arrimaha Kismaayo iyo arrimaha shidaalkuba saddexdii caqabadood oo Xasan dowladnimadiisii dhaqaajin waayay hor istaagay bay noqdeen waxa marka isweydiin mudan waan rabaa inaan idin weydiiyo saddexdaas arrimood haddii marka qof muwaadin ah oo dalka madaxweyne ka ahaa uu og yahay in caqabadaha ay hor taagnaayeen waqtigiisii dowladnimada Soomaaliya waxay ahayd in muwaadinkaasi hadduu yahay muwaadin ay ka dhab ahayd inuu marka dalka hore u socdo inuu markaasi dowladda bood timaada kow uu kaga digo labo isla markaasna uu kala shaqeeyay si looga bixilaa maadaama asagu uu soo testigareeyay dalkuna uu mataqaanaa muwaadin asna uu ka yahay qofka kale ka dambeeya inuu ka caawiyo ahayd
inuu xasan ka caawiyo iska daa farmaajo in dalka la difaaco iska daa xasan runtii la garab noqday oo maanta garab istaagay axmed madoobe oo asaga la oran karayo fashilkiisii iyo soo noqosho la'aantiisii iyo hoggaankiisii halaabay qayb weyn buu ka ahaa ayuu maanta garab taagay wuxuu kaloo xasan si hoose uu garab siinayaa dowladda Kenya sida ay xogo lagu kalsoon yahay adina ay sheegayaan soo marka waxaa su'aal galaya marka oo maanta ito isweydiinaya waxay tahay xasan sheekh ma yahay muwaadin dhab ay ka ahayd inuu dalka Soomaaliya hor u socodsiiyo waa su'aal ba haday su'aashu maya tahay dekiis ku dhamada haday ha tahay way uu maanta ito dagaalkan cusub arrimaha lagu xoreynayo dalka uu qayb uga noqon waayay ayaa xiraysa doodaas markaysan soo taa waa halka ayda ah soo marka xasan runtii aragtiyan halkaas anigu kaga har xasan oo ma arko inuu yahay nin muwaadin ah oo Soomaali ah oo ay dhab ka ahayd inuu Soomaaliya hore u wado haday hore inuu u wado Soomaaliya dhab ka ahaan lahayd cidii asaga ku soo duushay cidii dowladnimada ku soo duushay cidii hoggaankiisa ku soo duushay maanta ay Muuse raaci lahayn soo marka mashruuc qaldanaa maanta uu qaldan cid ka jawaabi kartaa ma jirto taa waa halka waxaan rabaa inaan ka hadlo finally sidee saddexdaas arrimood ee dalka caqabada ku noqday waqtiga xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne farmaajo uga dabaash wuxuu sameeyay waa final aan ku soo koobayo muuqaalkaygan kooban arrinta ugu horeysa farmaajo qayb kama aha urur diimeed dalkan ama keenin urur diimeed damu jadiid al-islaah al-shabaab waxa farmaajo kuma jirin waxaana moodaa inuu madaxweynuhu fahansanaa aragtida la socday macluumaadka talada ay gaaraysay ma aysan jirinin wax urur diimeed ah madaxweynaha ku hareeraysan nin walba oo wasiir ah nin walba oo ra'iisul wasaare ah iyo farmaajo waxa isku keeni kara ma noqon kara urur diimeed isagoon taariikhdiisa urur diimeed kama uusan qayb noqon taa marka halkaas ugu dhamaato arrinta labaad Kenya iyo Kismaayo farmaajo wuxuu ka qaatay go'aan geesinimo intii marka uu madaxa dhiiban lahaa wuxuu go'aansaday inuu dagaalamo dagaalku mararka qaarkood wuxuu xal u yahay sharaftaada wuxuu xal u yahay mustaqbalkaaga dagaalkii uu farmaajo galay waxyaalo badan buu Kenya kaga soo dhacsaday waana ka maanta Kenya halka isaga xiray ugu yaraan gobolka Gadan uu ka hoos bixiyay boodalkiina uu xirtay intaas oo talaabana uu ku sameeyay Kenya marka ugu yaraan maanta siyaasadda Soomaaliya wax saameyn ah oo ay ku leedahay runtii ma jirto sidii marka ku dhacday xasan farmaajo ma uusan yeelin inuu dagaalamo ka doorbiday inuu xaliyada madaxa u dhibto arrinta ugu dambaysa shidaalka madaxweynuhu wuxuu sameeyay sharciga shidaalka dowladihii soo yaacayay iyo waxa ay oo dhanna sharci iyo procedure iyo qaanuun baa laga horgeeyay cid sharci la siiyay cid laga naqaashay iyo waxa ma jirto inkastoo ay jiraan qaybo ka dhiman sharciga batroolka laakiin haddana madaxweynuhu procedure dhab ah u maray istaraatiijiyad leh marka ma aysan dhicinin wixii xasan ku dhacay oo kale in maxaa la yiraahdaa Hargeysa kuwa qaataan in Shafron meel kale ka qaadato in ay qaadato arrintii ugu xumayd ee bahdil ah oo shidaal nooga dhacay waxay ahayd markii shirkadda Eni ee madaxweynaheennii xasan sheekh maxamuud uu yeertay dalka Talyaaniga oo inta Talyaaniga la geeyay sidii qof shacab ah tareen la saaray wuxuu la shirayay waa shirkad isagoo madaxweyne ah waxay geeyeen magaalo aan xataa caasimadda ahayn ee lokola waxay soo areen tareen meel bahdilaada bay kula kulmeen intaasna wuxuu raadinayaa waxay ahayd noo daayay shidaalkeena iyo arrimahan inta ugu horreeyay ku dhaw laakiin waxay ahayd inuu tabaraac soo saaro uu yiraahdo ma jirto cid aan license siinay ini dalkeena hadaysan ka bixinin sharciyada caalamiga wax waraaq ay 2 minutes ku dhamaan kara ayuu madaxweynuhu asbuuc ku dhameeyay taasina waxay ku tusaysaa halka uu xasan u marayo mararka qaarkood wax hal daqiiqo loogu talagalay inuu ku dhameeyo intaasaan kusoo koobaya dokumentigan insha Allah taala wuxuu ka mid noqon doonaa dokumentiyada aan dadka asxaabta la wadaago walow aan Facebook la soo dhigi karin ugu yaraan dhowr 20 page uu yahay laakiin haddii qaab website oo kale iyo qaabkaas oo kale u jirto waa la wadaagi doonaa waa Soomaaliyeed si ay uga bogtaan laakiin waynu la soconaa tilaabo walba oo dalka socda ishaynu ku haynaa dokumenti walba oo soo baxana waa noo save garaysan yahay dalkana waynu difaaci doonaa ninkii shalay marka madaxa dhiibtay maantayto waynu ognahay kii shalay diiday inuu madaxa dhiibto oo gobonimo ka doorbidana maanta wuu noo save garaysan yahay oo magaciisa waan ka naqaanaa Soomaaliya ha guulaysto dalka Allah barakeeyo cadowga Allah jabiyo doorashadu way dhici doontaa guul baynu rajaynaynaa biidnillahi tacaala intaas aan kusoo koobiyo assalamu calaykum wa rahmatullahi tacaala wa barakaatuh